بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. سورة الأحزاب ayaa ku soo rafsanay aayada 69 ayuu darsigan ka bilaabanaya. wuxuu alla yidhi subxaana wa tacaala: yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyayow, laa takuunuu ha ahaanina kaaladiina kuwii oo kale aadow dhibay muusa muuse dhibay oo fabara'ahu allahu alla uu beri yeelay mima qaaluu waxay yidhaahdeen uu ka beri yeelay. fabara'ahu allahu alla beri yeelay muuse mima qaaluu waxay yidhaahdeen xaggiisa ayuu ka beri yeelay. wa kaana wuxuu ahaa nebi muuse calayhi salaam cinda allahi ilaahay agtiisa wajiihan mid weji leh, darajo iyo weji mid leh ayuu ahaa. reer bani israa'iil ayaa waxay dhibeen nabiyullaahi muuse calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wassalaam. marka innagaa waxaa layna leeyahay sidii reer bani israa'iil nebi muuse u dhibeen oo kale nebigiina ha u dhibina. muxuu ahaa dhibkay u geysteen? dhibaatooyin aan yarayn bay u geysteen oo qur-aanku in badan ka mida uu sheegay. waxaa ka mid ah siduu nabigu sheegay sal lla alay wasalam, wuxuu yidhi nabiyullaahi muusa wuxuu ahaa mid xishood badan, nin aada u xishood badan buu ahaa. jidhkiisa lama arki jirin, cawradiisa. baynamaa reer bani israa'iil markay qabaysanayaan iyo si iyagoo is arkayo wada jooga ay wada qabaysan jireen. nebi muuse calayhi salaam isagu meel gooniyu u bixi jiray. markaas dacaayad bay ku fureen. waxay yidhahdeen muuse wuxuu isla qarqarinayo ama baras buu qabaa ama sheeluu leeyahy. xadiisku saxiixulbukhaari uu ku yahay. ceeb unbaa ku taalla, wax kale isma qarqarinayo. maalin maalmaha ka mida markaa ayuu nabiyullaahi muuse calayhi salaam meel buu ku qabaysanayay. meel ayuu ku qabaysanayo. markaasaa waxaa u yimid markuu dharkii iska dhigay oo uu biyihii ku qabaysanayay, dhagax buu maryihii saartay. dhagixii uu maryaha saartay baa la carray maryihii. markuu intuu soo qabaystay soo baxay oo maryihii qaada isjir, dhagixii maryuhu saarnaayn baa maryihii la carray. nebi muuse calayhi salaam markaasuu daba orday, ushiisii intuu qaatay uu dhagixii kala daba orday isagoo le thawbi xajar, thawbi xajar, hor dhagaxii maradayda idhig, war dhagaxii maradayda idhig isagoo ku hay. siduu u daba ordaayay isaguna maryihii ula cararayay ayuu koox reer bani israa'iil oo meel fadhfadhida ayuu la dhex galay. meeshii markuu marayo ayuu istaagay. maradii buu qaatay, uu xidhay, dhagaxiina ul buu kala daalay. ushii uu ku dhuftay nabarkeedii dhagaxa waa ku yaalay. dhowr nabar buu ku dhuftay oo nabar bay ku noqdeen macnaha. reer bani israa'iil marka waxay arkeen nebi muuse oo qaawan oon maryo qabin oo ilaahay subxaana wa tacaala nin uu abuuray jidhkiisu ugu qurux badan yahay. yani siduu u yaalla iyo siduu u abuuray ceeb aan lahayn macnaha siman ayay arkeen. taasaa marka laga hadlayaayo rabbi subxaana wa tacaala nebigiisii dacaayadii iyo ceebtii ay wadwadeen ilaahay baa ka baryeelay. see buu ku baryeelay? arrintaasuu ilahay ku baryeelay subxana wa tacaala. way caddaatay marka inuusan ceeb qabin, baras qabin, sheelo lahayn, ceeb kale lahayn. laakiin wuxuu isu qarinayo ay tahay xishood daraaddii inuu isu qarinayo. taasaa marka caddaatay. innaga marka maxaa layna leeyahay? waxaa layna leeyahay sidii reer bani israa'iil nebi muuse u dhibi jireen oo kale nebigiina ha u dhibin. waa ka rasuulkeena sal ly slam maalin maalmaha ka mid ah intuu haniimo qaybiyey, xadiidka cabdullahi bn mascuud, haniimuu qaybiyey. markuu haniimadii qaybiyey nin baa istaago wuxuu yidhi ilaahay dartii loolama jeedo. qaybintan ilaahay dartii loolama jeedo, istustus baa laga wadaa. markaasaa nabigu sal lay waslam wuxuu yihi: yarxamu allahu muusa
laqad uudiya biakthara min hada fasabra buu nabigu sal lay slam ilahay sabray buu nabigu sal lay slam marka nabigiina sidii muuse loo dhibo kale ha u dhibina reer bani israiil oo kale ha noqonina wy maana yahuuddii ambiyada dhibi jirtay oo kale ha noqonina ee rasuulkiina ka edebsada nabiga ka edebsada oo rasuulka ha dhibina waxa la wixii dhib ku ah ka ilaaliya nabiga salawatu rabbi wasalaamu alayh sababta la leeyahay maana yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyow laa takuunuuha ahaanina kaaladiina kuwii oo kale ha noqonina aadaw dhibay muusa muuse dhibay oo fabara'ahu allahu alla uu beri yeelay muuse fabara'a uu beri yeelay hum muuse allahu alla beri yeelay mima qaaluu waxay yidhaahdeen xaggiisa ayuu ka beri yeelay wixii ku sheegeen ayuu ilaahay tusay inuu ka fayow yahay oo uusan qabin wa kaana wuxuu ahaa muuse cinda allahi ilaahay agtiisa wajihan mid weji ku leh ilaahay subxana wa tacaala darajuu ku lahaayo rusushiisa qiimaha leh ululcasmigaabuu ka mid yahay wuxuu weydiistana lamaba soo celin jirin waxaan suurogeli karin inuu yahayba mooye xataa markuu yidhi walaalkay rasuul ka dhig waa kii ilaahay ka yeelay subxana wa tacala markaan soo marnay sooma xusinin saas macana ayib hal arrin unbaa lagu diiday arrinta lagu diiday waxay ahayd arinii andur ilayk ilaahayow iskay tus aan ku arkay markaasa waxaa lagu yidhi ma suuroobi karta midaas marka taasi ma dhici karto waa waxaan dhici karin qaab dhismeedkiisa hadda uu bini aadan ahaan u samaysan yahay iyo alla aragtidiisu ma suuroobi karto waa wax mustaxiil hadda waa waxaan dhici karin ma xamili karo laakiin xilligeeda oo aakhara ah wuu arki insha allahu tacala muminiintuna way arkayaan macnaha ayib marka nabiyullaahi muusa calayhi salaam wajiih buu ahaa saas daraaddeed rasuulkeenna inaga waxaa lala leeyahay ka edegsada oo sidaasoo kale ha u dhibina dhibka ka ilaaliya wy macnaha ayib waxaa qariib oo aada loola yaabaa in hadda ay dad islaam sheeganaya ay nebiga caayaan salawaatu rabbi wasalaamu caleyh oy ula badheedhaan nebigaaga waxaa ku samey bal iskaba dhaafa ilaahaaga waxaa ku samey malaa'igtaada waxaa ku samey islaamnimay sheeganaya waa bulsho islaam baa lagu leey soomaali wey bal waxaan xusuusnahay waqti ay dhalinyardu ku ilbixi jireen magaala la soo gelayaa ilbaxnimada waxaa laga bilaabaa in ilaahay la caayo malaa'igta la caayo nebiga la caayo maxaa laynoo baabiyey ba idinla bilaash ba wax aan reebnay oo hambaynay maba jira muqadasaadkii ugu waaweynaaye xataa gaaladu ka baqdo soomaaliya waa ka xisho wey markaasaa ilahi subxana wa tacaala meelayna malaynin kaga yimid yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llah yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyeyo ittaquu llaha alle iska jira oo waquuluu dhaha qawlan hadal sadiidan oo toosan hadal hagaagsan oo toosan dhah yuslix wuu wanaajini haddaad saa yeeshaan lakum idinka wuxuu idin wanaajinayaa alle acmaalakum camalyaalkiina wayakfir wuu dhaafi lakum idinka dunuubakum dembiyadiinana wuu idin dhaafi waman ciddii yutic ateeca allaha alle iyo warasuulahu rasuulkiisa ciddii ateeca faqad faaza waa liibaanay fawzan liibaan cadiiman oo weyn allah ka baqa hadal wanaagsan oo toosanna dhaha yacni alla kacabsiga waa qalbiga yaa asalu attaqwa haahuna nabigu qalbigu tilmaamay sal lay slam kadibna macnahaas qalbiga ku dhashay baa wuxuu saamayn ku yeelanayaa xubnihii baa marka wanaaggiina samaynaya ilaahay jeclaa wixii ilaahay ka reebayna ka tegaya waxaana keenay macno qalbiga ku beermay oo qalbiga galay taqwo taasaa la yidhaha alla ka cabsada oo iska jira cadaabkiisa waxaadna tidhaahdaan hadal wanaagsan oo toosan macnaha carabka ilaaliyo carabkaaga man kaana yu'minu billahi walyawmi alaakhiri falyaqul khayran aw liyasmut wey ninkii ilaahay iyo maalinta aakhara rumaysan ama khayr ha ku hadlo ama ha iska aamuso bisukuuti salaama yani man sakata salim haddaad aamusnaato waad nabadgeli haddaadan khayr ku hadlaynin shib iska dhig aamuskaa kuu fiican waa kan rasuulkeenu sheegay sal lay waslam dadka waxa ugu badan ee naarta ay ku galaani waa carabka iyo xubinka taranka labadaasaa naarta dadka intooda badan geliya siduu nabiga noo sheegay sal lay waslam waagu markuu bariyo xubnaha dhan waxay abhinayaan oy dhaarinayaan carab oy leeyihiin warniyahu ilaahay nooga cabso haddaad adigu toosnaato annaguna waan toosnaanaynaa haddaad adigu qallocsantana waanu qallocsamaynaa carabkani marka balaayo haddii marka carabka aada hagaajisaan oo toosisaan oo hadal wanaagsan oo ilaahay jecel yahay oo ku hadashaan maxaa ka dhalanaya yuslix lakum acmaalakum camalyaalkiinaa laydin hagaajinoo dee xubnihii baa raacaya
يعني كعمه يلوجه وشي أي سمين لهايين وهجاجي إلهي بقوافجين ذنوبتي لنا والله ضافي ما دام عرف كيف أتكاتين وكنتروشين وكان النبي صلى الله عليه وسلم روحي إيد ما نقاده عرب كيسي أبكيس إنه إلاليني فرج كيسي حبين كثرا كان إنه إلاليني شندا نضد ما نقاده النبي صلى الله عليه وسلم يغفر لكم ذنوبكم ذنوبتنا أيها الله سبحانه وتعالى روحي الله رسول كيسا أطيعنا ليبان وين بو ليبان بربي سبحانه وتعالى يعني ليبان تحقيقها وإنه إلهي كوافتشيه ضاعت الله وضاعت رسوله صلى الله عليه وسلم إلهي إن أضعنا رسول كيسا أضعنا جد كودي أدمرتو جد كي وجدين تاسا ليبان توينه ليبان توين حول اللغسية ما إن عاطمان اللغسية ما إن كرسي الدولة نمان اللغسية ما إن عرور اللغسية ما ليبان تقبتي وحوي إنه إلهي كوافتشيه ضاعت الله وضاعت رسوله صلى الله عليه وسلم مدى ليبان فكما ضميزنا معنا يا أيها الذين كوا آمنوا الرميوا اتقوا الله ألك عصبوا اسكتشرا وقولوا واحد هذا قولا أراه سديدا أو هجاكسا وتوصا يصلح وناتين وهجاكسا لكم إذنك الله وحيدين هجاكسا يا أعمالكم عمليالك لنولاك بيدوا وفجنيا ويغفر وباقي لكم إذنك ذنوبكم ذنبيد إننا وإذن باقي لما ساكت عليا حدي العرب هجاكسا الله كبعصة معنا ومن يطع روحي أضيع الله ورسوله ورسول كيس أضيع فقد فاز حقيقه لبان فوزا لبان عظيما أوين إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا إنا أنه عرضنا وانبلغني الأمانة أماني على السماوات كركضا وانبلغني والأرض يضرلك والجبال بوري فأبين ويتيدين انتو ديبا أن يحملنها أماندي إني حنبارا وأشفقنا وين بقين منها أماندي ويكبقين وحملها وحا حنباري أماندي الإنسان إنسان كيوا حنباري إنه إساقو كان وحوها مركو حنباري ظلوما من بدن جهولا أو جاهل من بدن بوها محال لو حنباري أو قاضي ليعذب الله ألا إنه عذاب درادد المنافقين إنه عذاب رجع والمنافقات هي دمر كمنافقات كإنه عذاب والمشركين رجع مشركين إلهي وحلو وداجي إنه عذاب والمشركات دمر كمشركات كألا وحلو وداجي ويتوب الله ألا إنه كتب أقبل على مؤمنين تكركودا والمؤمنات دمر كمؤمنات كا لبضانا إنه ألا كتب أقبل درادد وكان الله ألا نوحو هذه غفورا مدكي تافس بدن رحيما أو نحرستوا هذا وحا آيادا لنقود درنسينيا حلك آن قاني عليسك أوليه أمانة وحا لقولا يعني تكاليف شريعة أو واجباتك إن لقتاء إلهي رسولك إن لأطيعاء تاسا وحي تهي أمانة واللي نقو أمانستي وانا ضلنكي عهدكي أن لا يفرتي سكاقادني inaan isaga adoomo u noqonayno inuu toosnaanayno amaanadaas waxa ka dhalanaya abaalgud oo ah janno ilaahay subhanahu wa ta'ala dayacida amaanada la dayacana waxa ka dhalanaya cadaab ilaahay hawsha iyo xilka culus ayaa waxa loo bandhigay makhluuqaadka waaweyn kuwa inoo muuqda kuwa ugu adag masalan samaawaadka iyo dhulalka iyo buuraha waxa lagu yiri xilka ma qaadaysan maxaan leenahay hadaan noqon hadaad ka soo baxdaan oo gudutaan jannad leeyahay hadaan ka soo bixi weynana cadaab leeyahay ilaahay waxba ma qaadi karnaa naga daabo ilaahay waa ka cudur daarteen waa diiday xilkaas ma qaadi karnaa xilkii saa u cuslaaye samaawaadka iyo dhulalka iyo buuruhu ka cudur daarteen oo ka baqeen bini aadam baa tunka u ritay insaan baa qaaday yiri ana qaadahay bal daciifnimadiisa iyo tabarxumadiisa iyo xilka uu qaadahayo inta adagii ka iyo culculisi ka baqay malagu fiirso rabbi subhanahu wa ta'ala wuxuu ahaa mid dulmi badan buu ahaa oo dulmi badnadiisa waxa ku tusaya hawsha uu qaaday culayskeeda iyo sida uu ugu ciyaarayo jahuul buu ahaayo xilkani siduu yahay iyo culayskiisa iyo dhibka ka imaanaya iyo mid garanaya ma ahayno mid jaahilnimo badan jahli badan iyo dulmi badan waa labada sifo ee bini aadamka asalka u ah
الجهل والظلم سيد الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أوليه والله وصفه أصل كأبن آدم صلى معنا marka waana labada sababay inuu xilkan qaado uusan ka soo bixi karin Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu marka aayada inuu dareensiinaya arinta aynu qaadnay inta ay leegto maadaama culayska ay leedahay makhluuqaadkaasi ka cudur daarteen adiga marka doonayso inaad xambaarto soo inaad diyaar garowgeedii la timaado ma istidaadkeedii iyo diyaar garowgeedii iyo dadaalkeedii waa in laga helo ila wax buurahaasi qaadi waayeen samaawaadka iyo dhulalku qaadi waayeen oo diideen oo ka baqeen baad qaaday hawshaasi intee bay dadaal kaaga baahantay marka intee bay culays kaaga baahantay intee bay juhdi kaaga baahantay waa in ay yareen saas waxaad garan kartaa natiijada ku xidhan maxay tahay haddaad dayacdana waa cadaab haddii aad macnaha wax way ka soo baxdood hagaajisana waa janno ilaahay oo khalqiga ilaahay ku ugu fiican baad noqon waa ta natiijadii rabbi wuxuu yidhi xilkaasi waxa bini aadamka loogu xambaariyey oo alla uu ugu xambaariyey in munaafiqiinta rag iyo dumarba leh iyo mushrikiinta rag iyo dumar isku jira kuwa horta inuu cadaabka geliyo waa kuwii amaanada ku dhacay sooma amaanadii kuwii ku dhacay oo kasoo bixi waayey amaanada dayacay mu'miniinta rag iyo dumarba isku jirana raggoodii iyo dumarkoodana ilaahay inuu ka toobad aqbalo oo jannadiisa uu geeyo amaanadan marka midda lagu kala baxayo amaanada ilaahay subxaanahu wa tacaala hortiisa aan ka ballan qaadnay suuratul acraaf saan kusoo marnay kadibna xusuusinteedii rususha ilaahay inoo soo diro layna xusuusiyey kutub laynoo soo dhiibay oo layna xusuusiyey amaanada iyada ayaa lagu kala bixiyo hoyga aakharana iyaga unbuu ku gowracay ku qaybsan amaanadaas ruuxii hagaajiya يعني وحوي الدنبداف يجنا إلهي بليه أما ندى روحي ضيعوا كعيارانا عذاب إلهي بليه سبحانه وتعالى ومنافق يقال مكاز معنا ساسوية مركا حلكا يهوشا سائب سارنا دلالا ليه معنا وميشا هايستغلنا إنا أنه عرضنا وانبندقنا الأمانة أماندي والتكاليف إيه حلك الدينتو واتشبات هذه توحيد تهي هذه أخلاق تهي هذه عبادة تهي هذه معاملات تهي هذه سلوكيات تهي يعني واجباتك إيا تكاليف دينتا أيها وحا لقوة أمانة إنا أنه عرضنا وانبندقنا الأمانة أماندي على السماوات ككركضان أبندقنا والأرض يبرلك إيا والجبال بورح فأبين ويديرين أن يحملنا إلي حنباران ها أمانة إلي حنباران واديرين هذا أمر لازمة مدي كريم لكن أرنتا وحي أحي بندق إيا الخيار كليه خيار بدلين أما قادة هذا قادر وتصل بحضان شنا الليل هذا ديدان هذا معناها تصل بحوذ النار بالليل خيار كيف مركا كعذر دارتين فأبين وادين أن يحملنها إني حنباران وأشفقنا وإن كبقين منها حقا وكبقين صوت يديدين دور ويكعصنا وحنا ما تصل بحوذ يعني وحويان لأن سلامة إيا النبتقريضة وحنا الله قمالي إله الجمادات كنقع الإسكاء هاني انتي معناه وحوي يعني خير وحكومية لشرط فوق هاي جماعت كيغا إنا نسكاء هذا وحبحي الإفولين أيا إيد دانتا انتان تتشابك قالوا إنا يبيعكر تتشابك إنا قدعوا marka ilaahay uu iga naga daawiyay waa ka cuntaas طيب وحملها وحا حنباري امانتي الانسان انسان كيبا حنباري بني ادم با حنباري انه اسو كان وحو اهاده ظلوما مد من بدن جهولا او جهل بدن بو اهاده مد جاهل نما بدن او ظلم بدن بو اهاده وحي لو ديري خلكي او قاداي كما سو بخاي ان بدن oo kamid waa dayacay in badan oo kamid waxbay ka dayacayaan in badan oo kamidna kulli waaba wada dayaceen waa ka dhaqaaqeen waa munaafiqiinta iyo gaalada in badan oo kamid oo muslimiinana amaanadii qaar kamid ay dayacayaan amaanadaas waxa soo galaysa taa ilaahay aan la galay mooyee khalqiga ilaahay amaanada idin dhaxmaraysay lagu amaanaysanayo ayaa iyaduna soo galaysa macna waa nooc in takaaliifti shariicada kamid ah iyaduna macna طيب maxaa amaanada loo xambaariyay ليعذب الله إنه عذاب درادد المنافقين منافقين ترجع والمنافقات دمر كمنافقات والمشركين يرجع مشركين والمشركات دمر كمشركات إنه عذاب درادد نتيجة مرها الله جو صنع أمانة اللي سحن بري امتحان خصوصي معنا قل الله هو يجاسي لي إنه عذاب إلهي ما حيكون متين أمانة دي بجزء بتوعي
ويتوب إنه توبة أقبل درتد الله ألا على المؤمنين مؤمنين ترجع كركودا والمؤمنات الدمر كمؤمنات كركودا إنه كتوبة أقبله وإله سبحانه وتعالى ولا جواب تشيو أدونك أنت تقول أمانة إني قتال نقوى فتشيو كدبنا آخر مركي تقال إلهي وحي دنبي قلنا أولاف سلمنا ربي سبحانه وتعالى وكان الله الله روحه هذا غفورا متكي باسبدا رحيما أو نحرستو أهل يعني معنى وحوي ربي سبحانه وتعالى نحرست كيسا إيو ناتستيسا أيام مر والبكبدا أو كفر ريسا عذابتيس يقالتيس إذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم سورة السبع بسم الله الرحمن الرحيم سورة وسورة مكية waxay ka warrami qadayaadkii arrimihii waaweynaa ee suwarka makiga ay ka warrami jireen alxamdu mahadlillahi ilaahay u sugnaatay alxamdu mahad iyo ammaan dhammaanteed lillahi ilaahay bay u sugnaatay alladii allahaasoo lahu isaga uu sugnaaday maa fi samaawaati samaawaadka waxa dhexdooda iyo wamaa fi lardi waxa dhulalka dhexdooda walahu isaga keligii bay u sugnaaday alxamdu mahadda dhammayska tiran في الآخرة آخر بحذر وهو إسقى أيا الحكيم متك حكمة صاحبك والشيء والبميشي صدقه الخبير بحقوقك يعلم أن له في أجيه ما يليج وحجلي في الأرض دولك دحديث وحجلي وما يخرج وحصوبح منها دولك حجيس كصوبحي وما شيء ينزل دقي من السماء حق سركسو دقي وما شيء يعرج كريا فيها السماء دحيد كريا وهو الرحيم متك الحريستوي الغفور إضافة بدوي الله سبحانه وتعالى متك الحريست بدن إضافة بدوي رب سبحانه وتعالى ما هاد إلهي بإسكال دمانتي عاي كم تعالى دور سورة ضد القرآن كم ده والله سبحانه وتعالى ونفتي سمح هذه إنك نقول إلى بري إنه محذنه أمان ودن إسقى إسكال سبحانه وتعالى أمان ونكسن ودن إسقى إسكال أصل إسقى مدن إسقى الملكان ولا رب سبحانه وتعالى صوت وحوي sideedaba marka lees amaanayo ama lees mahadinayo waxa la isku amaana laba mid ama kamal daati ah shaygani aad amaanayso adiga yuusan waxba ku tarin waxbana ku geysanin laakiin sidiisu u dhameystiran yahay oo u amaanan yahay talabaadii amaanta keentana waxa weeye inuu gacan kugu leeyahay oo wax ku galay labadaba ilaahay baa subxanahu wa ta'ala iska كمالك يا دمايسترنان تميل أين الإيمان كسو جرين إسقى إسكال كلي بالله إيمان يا نقص يا عيب ملك ما زوجش تا كلي بإسكال خلقك أردن وحي كسميه إيمان بولي صفات كيسا إيمان خلق كيسا إيمان وإيمان مال وحلا الشيء واليه لكن الله سبحانه وتعالى وحده كمال ذاتي صفات كيسا أفعاشيسا ذاتديسو كمال وحي لذا مال عيب لغا شيء الله أمان بوحدة صومالي مرة طيب طلبات سببت الله يسكو أمانه والنعمة إيا برواقضة أنا إيا كتما دا ساقا ودا تحي هذا أردت من قروح لغو أمانة ياسي قروح الله بس من حول لغو أمانة يا أبدا ياسي الله بس سبحانه وتعالى من كرسي يملكي كفر لغو أمانة يا الله بس أخلاقي الدين روح لغو أمانة يا الله بسي وحكستو أو لسكو أمانة إساقو كسو تشيدا يساقا خلق يسي مركزوما الحمد لله مهد يا أمام بوحدة إساقا إسكال أول دمنا شاء الله ربي سبحانه وتعالى بس الله هاتواك والي نفس المامي ومثك السماوات كإيا قلالك تحوى خلقي وشيوغو بل إسكال إساقا أبورتي إساقا أوتري إساقا نمامولا بس wax ula taliya ama la abuurtay ama la leh ma jiro waa lagu celiyo waxa la yiri mahad buuxda iyo amaan buuxda ayuu aakhir leeyahay dhaxda adduunka qaar la amaanayo waa jiraan laakiin aakhir markii la tago rabbi kaligiiba amaanta iyo mahadda iska yeelan doon xakiim weeye khabiir oo waxa kamid waxyaalaha uu ku amaanan yahay rabbi sifatul hikma iyo sifatul khibra حكمنا وليه هاي الشيء والبميش والربو دقاء هذا الكيسة فعل كيسة شرع كيسة شيء والبؤ وقدر يؤكسه فله يميش وقوه الضاليد بدقاء لما وايو لما نسيغه مفر مسكتيه ربي سبحانه وتعالى خبير ويو شيء والبقنتي سؤال لوجه سبحانه وتعالى مخلوقة كجدس مخلوق حكمتك استهدوا ليه
وقفا ميلا وحكوها بونين نودقا ماشو إسلها وحسحب وخلدا خبرتنا ماله أقونتي سبن وسطحيو كركا وحي مقلا أما مقلا بوحكا أجيه لكن هوس الرماه هوس أمؤك صاص معنا مركا الله سبحانه وتعالى يعني صفات المدح جيسة وكو أمانية هي كم تاعي صفة الحكمة هي صفة الخبرة أسماء دي سنة حكيم هي خبير بكم رب سبحانه وتعالى أنت مركي لقاها اللي أود دي سويتك أود دي سوحة لقاها اللي علم جيسة وحقوقي هي وحكستو منك نحدي سقلي ومعيه كلا قادي نضب محاب منك قديه سقلا إمسا مخلوقات حيوانات نهي دولك قديس إمسا قرآن شيء عيان نهي دولك قديس إمسا ببيع كركتي متجلس يعني وحوي وحكستو دولك قديه سقلي إمسا إنه أبور قشنا دولك كو حبالنا وحكستو دولك قلي أردن إلهي وأكسيه سبحانه وتعالى كما قرصونا وحكستو دولك كسو بحينا وأجي وحكستو كركسو دقينا وأجي wax kasta oo kor fuulahayo oo samada aadayana rabbi waa ogsoon subhanahu wa ta'ala waa rahiimka naxariista ghafuurka tawbad yani idii u soo noqotana dambiga u dhaafa adoomadiisana u naxariista hatta kuwa gaalada cadawgiisa ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ugu naxariistaa markay dambiga galaan bixi tawbada kuma soo dadeji waa kadib diga xoogaa u kaadiya waa loo soo tadeereeyaa waa nooc naxariis kuwan naxariistiisa yani iyagu sababtii ay ku heli lahayn la yimid iska badaf ghafuur weeyo rabbi subhanahu wa ta'ala wuxuu u dhaafa adoonka u soo noqda ilaahay dambiyada waa u dhaafa subhanahu wa ta'ala alhamdulillah ilaahay u sugnaad alladhi allah sallahu isaga kaliya u sugnaaday ma fi samawati waxa samaawaadka dhexdooda ku sugan oo khalqi ah iyo ma fil ardi waxa dhulka dhexdiisa ku sugan oo qalaa'iq ah وله إسرائيل كلي بوسق هذا الحمد أمانة مهدب بحذاء إسرائيل إسكاله هذا ما يستلم في الآخرة آخر الحذاء الدون كان إسرائيل إسكاله لكن آخر ومرا هذا الكشر الدون وله الحمد في الآخرة في الأولى والآخرة يعني مدة هراء الدنيا يا آخر وإسرائيل إسكاله لكن آخر هذا هو حلو خصيصي شيء قد بنشر المركع إسرائيل وهو إسرائيل الحكيم مدك حكمة دلوي أو شيء والبمشوا كهبوي هيدقة الخبير حقوقال كو شيء والبنتي سأقوي يعلم أنه وحقوقه ما يليج واحد قليا في الأرض لك دحديث إيه وما شيء يخرج كصباحية منها ملك حق هذا كصباحية إيه وما شيء ينزل دقيا من السماء حق سري كسود دقيا لبيع بسود دقيا ملائكتي بسود دقيا أرزاقي بسود دقيا وما شيء وحقوقه يعرج كري وفوليا فيها السماء دحدة كري ملائكتي هضيتها أعماشي صالحة هضيتها يعني كروحي أسعد من إله وأصيه سبحانه وتعالى وهو الرحيم متك حريستوي الغفور ضافي أدومدي سأضافي دبنا الذنوب تضافي رب سبحانه وتعالى وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين وقال وحي لهذين الذين كفروا كفري وحي لهذين لا تأتينا نو إيمان ميسو الساعة ساعة نو إيمان ميسو ساعة نو إيمان ميسو قل وحب هذا بلى كتشوغا نو إيمان ميسو داي وربي يبان خطاتي لتأتينكم وإذين إيمان وإذين إيمان عالم الغيب بان خطاتي أما اللي عالم ربك عالم الغيب وحمقا كميك أقها لا يعزب مسيقنا عنه الله حجيس مسيقنا مثقال ذرة وحقدر كده في السماء والذرة سو في السماوات كدحدو ذا ولا في الأرض يقول كدحدي سطور ولا أصغر مدي يرمتشرو من ذلك مثقال ذرها كير ولا أكبر يميت كوينتونا إلا هدي أنشرو في كتاب نحدي هذا كتاب كاسو مبين العبد وأنوانكي ديري تشري إن ليس صون نولين دور مبدئي بعتك إيا نشورك ويكدو تصايوي نوانكا قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم ودينتا نحدو ذا كفي ديني عربتا مبدأ دي دينيت ووحي دي تشري مدعي كفرين السعرية markii la baabo kadib waxay yiraahdeen kuwa kufriye saacadi ma iimaanayso wax qiyaama oo inta la soo nooleeyo la isla xisaabtami doono ma jirtay dhig jireen waxa lagu yiri nabiga waxa tiraahdaa bala iska dhaaf warkaas
rabbigay baan ku dhaartay way idin imaan waxay kamid tahay saddex aayadood oo quraanka kamid ah oo nabigeena la amray sallallahu alayhi wasallam inuu ku dhaarto rabbigii qiyaamadu inay imaan doonto tani waa midna waynu soo marnay wayastanbi'unaka ahaqqun hu qul ii wa rabbi innahu alhaq way ku weydiinayaan bacsigu ma xaq baa waxaad tidhaahdaa ii ajal haaway macna rabbigay baan ku dhaartay haa waa xaq tan kalena suuratu taqaabun bay noogu imaan doontaa insha allahu tacala aayadda saddexaad zacama aladiina kafaruu an lan yubcathuu qul balaa warabbii latubcathun marka saddexda aayadoodba aayad afraysa ma jirto saddexda aayadoodba nabigaa la amrayaa inuu rabbigii ku dhaarto qiyaamadu inay imaanayso ku dhaarana le rabbigaa subxana wa tacala allihii caalimu lghaybi ah rabbigaa aan ku dhaaranayay waa waxa maqan iyo cilmiga qarsoon midka ogsoon wey oo ay ka mid tahay saacaddu ka mid tahay saacadda cilmigeedu waa qarsoon yahay rabbigaa og ee ka warhaya waktigay imaanayso rabbigaasaan ku dhaartaye way idin imaan wax ilaahay ka qarsoonay inuusan jirin oo cilmigiisu guda weyn yahay ayaa markaa kadib la sheego wuxuu yidhi laa yaczubu canhu mithqaalu daratin ma seegana oo alle kama maqna darro wax qadarkeed ah oo ama cirarka dhexdooda ku sugan ama dhulalka dhexdooda ku sugan alle ma seegano subxaana wa tacaala yacni darrada waa kaan hadda ka hor soo sheegno culimada qaarkood waxay leeyihiin waa quraanjada gudgududan dhurcasada la yidhahda aada u yaryar qaarna waxay yidhaahdaan markii matalan uu shucaaca qoraxdu uu guriga soo galo yani bus yar oo dulduulaysa oo qoraxda dhexdeeda aad ka arkayso ilayska qoraxda dhexdeeda kaaga muuqda markii ilayskaasi meesha ka baxana ishaadu ayna qabanayn kaasaa la yidhaahdaa darrada la yidhahda cilmigan hadda casriga ah cilmu darraha la yidhahda hadda waxay u yaqaanaan raggan ka shaqeeya waxaa loo yaqaanaa darrada asqaru shay oo laa yanqasim bay dhahaan shay wax jiro oo ugu yar oon qayb aqbali karin baa darrada la yidhahda bay dhahaan unugga ugu yar oo wax ka samaysmo oo aan qayb aqbali karaynin baa darrada la dhaha bay dhahaan marka adiga saa tidhaahdaba waa shay aada u yar shaygaa yar qadarkiisa iyo qiyaastiisu wax dhan oo ama dhulkan ballaadhan dhexdiisa yaalla ama samaawaadkan ballaadhan dhexdooda yaalla ilaahay kama qarsoona subxana wa tacala kama seegana intaa in la eg oo dhulkan sidan u ballaadhan ama samaawaadkan ballaadhan yaalla haddayna ilaahay seeganayn waxyaabihii waaweynaa ka war may seegi karaa abadan waa laga sii xeedheereeyo waxaa la yidhi wax ka yar ma jiro intaa iyo wax ka weyntoona ilaa hadduu jiro kitaabkuba ku qoran yahay cilmiga waxaaba dheer ogaanshaha ilaahay waaba qoran yaho looxulmaxbuudkaaga waa hore lagu qoray maxamed aduu ka hadlin ogaan iyo cilmi iyo waxaaba intaan waa hore intaan la abuurinba ba waxaana sii qornaaba meeshuu yaallo wuxuu mari doono wuxuu ku dambayn doono wax kastoo ku saabsan horaaba loo qorayba marka cilmiga ilaahi subxaana wa tacaala ajmac sida bini aadam caadi ama khalqi caadi ah cilmigiisa maa cilmiga khalqiga iyo bini aadamku heer buu ku egyahay si kasta hadduu cilminayahay khalqigu cilmigiisu xad buu leeyahay laakiin cilmiga aan xadda lahayn wax soo celinayaan aan jirin wax ka hoos baxayana uusan jirin yaa iskale allah baa iskale subxana wa tacala waa sifatu lcilmi waa sifo ilahay leeyahay laakiin ha lahaadee sifatu lcilmiga rabbi leeyahay iyo sifatu lcilmi khalqiga marka loo sugaayo ma isku mid ba maya qudrada ilaahay iyo qudrada khalqigu ma isku mid ba maya nolosha ilaahay iyo nolosha khalqigu isku mid ma maqalka ilaahay iyo maqalka khalqigu isku mid ma aragga ilaahay iyo aragga khalqigu isku mid ma tanna khaaliq baa iskale tanna makhluuq daciifa iskale oo meella wixiisa uusan gaadhsanayn macna saas weyn وقال waxay yidhahdeen aladiina kuwa kafaruu kufriya waxay yidhahdeen laa ta'tiina noo imaan mayso assaacatu qiyaamadii noo imaan mayso qul waxaad tidhahdaa balaa ka jooge balaa iskaba dhaafa inaysan idiin imaanan warkaasi war jira meehe wa rabbii rabbigay baan ku dhaartay lata'tiyanakum way idiin imaan oo way idiin imaan caalimilghaybi baan ku dhaartay bedel ka dhiga doorto caalimilghaybi baan ku dhaartay ka maqan midka ogsoon waxa maqana cilmigiisu maqan yahay midka ogsoon baan ku dhaartay laa yaczubu ma seegana canhu alla xaggiisa ma seegana mithqaalu daratin darro wax qadarkeed iyo qiyaasteed ah kaasoo fi samaawaati samaawaadka dhexdooda ku sugan walaa fi lardi iyo dhulalka dhexdooda
walaa asqaru wax ka yar ma jiro min dalika kaas mithqaalu darraha wax ka yar ma jiro walaa akbaru iyo mid ka weyntoona ilaa xaal fii kitaabin kitaab dhexdii uu yahay mooye kitaabkaasoo mubiinin cad xaalada uu jiraayo waa xaalad uu kitaab ku qoran yahay yani kitaabku ku qoran yahay shaki male kitaabkaana waa laxul maxfuud liyajziya aladiina maxay qiyaamadu u imaanaysa cilmigan ilaahay muxiidka shay walba koobayse muxuu u jiraa liyajziya qiyaamadu waxay u imaanaysaa liyajziya inuu abaalgudo daraaddeed alleh aladiina kuwii inuu abaalgudo aamanuu rumeeyey oo wacamiluu sameeyey alsaalixaati acmaasha wanaagsan inuu abaalgudo ulaa'ika kuwa lahum waxaa u sugnaaday maqfiratun dembi dhaaf iyo wa risqun risqi baa u sugnaaday kariimun oo wanaagsan waa jannadeed waaladiina kuwa sacaw socday fii aayaatina aayadaha naga dhexdooda ku socday mucaajiziina xaala ay yihiin kuwa caajis gelinaya aayadaha ulaa'ika kuwaasi lahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab baa u sugnaaday min rijzin cadaabkaasoo min rijzin cadaabkan ugu xun ee ugu adag xaggiisa ka ahad ama cadaabkaasoo min rijzin cadaab midka ugu adag ah cadaabkaasoo aliimun xanuujinaya cid kastoo la geliya macna wayaraa waxay arkayaan yaraa waxay og yihiin aladiina kuwa uutuu la siiyey alcilma cilmiga ku la siiyey waxay og yihiin alladii midka unzila la dejiyey ilayka adiga lagugu dejiyey min rabbika xagga rabbigaana lagaaga soo dejiyey huwa isagu alxaqa inuu xaqa yahay bay og yihiin wayahdii wuu hanuunini ilaa siraatin jid xaggii ilaa siraadi alcasiizi allaha casiiskaa jidkiisa alxamiidi ee la mahadiyo kaa jidkiisa ayuu dadka ka shaqeeyey aayadaha ilahay dhexdiisa iyagoo casis gelinaya caajisgelinta maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa waxay ka shaqaynayeen inayna aayadaha ilaahay fulin oynan hirgelin oo siduu ilaahay ku talagalay aynan u dhicin way hortaagan yahay sacyigood iyo dadaalkooda dhan wuxuu ku salaysan yahay aayadaha ilaahay dhexdooda ma raacsan yihiinoo ma ka shaqaynayaan maye mucaajiziina way caajisgelinayaan yacni alla muxuu rabaa inay aayadihiisu fulaan aayadihii rabbi rabay inay fulaan oo dhaqan galaan oo la qaato oy hirgalaan bay iyaguna waxay ka shaqaynayaan inaysan hirgelin waa ka hortegayaan marka waxay isku dayaan ilaahay inay caajis geliyaanoo inay awoodiisii iyo siduu rabayo wax u rabay intay ka hortagaan inay aayadihii buriyaan oo meesha ka saaraan bay ka shaqaynayaan waa gaaladii waa kuwii la shaqaynayey waa waxa weye munaafiqiintii waxaas ilaahay diintiisa iyo aayadihiisa la dagaalamaya ayaa laga wadaa waaladiina sacaw fii aayaatina mucaajiziin dadkaasoo dhan isku duuduube kuwaasi waxay leeyihiin cadaabkaasoo cadaabkan ugu adag ah min rijsinta cadaabka kala adag cadaabkan ugu adag bay leeyihin cadaabkaasoo weliba xanuujiya waxay arkayaan kuwani aayadaha ilahay haba ku kufriyaan laakiin ku kufrintoodu qiimo ma leh kuwa waxaa jira cilmiga kuwa la siiyo oo aqoonta leh oo ama nebi maxamed asxaabtiisii iyo ummadiisa ka mid a ama yahuud iyo nasaaro culimmadoodii qaar ka mid ah kuwa cilmiga la siiyey ee aqoonta leh ee garashada leh kuwaasi waxay og yihiin kan lagugu soo dejiyey inuu xaq yahay qur-aankan kugu soo degay nebi maxamed inuu xaq yahay yay og yihiin adduunka markay joogaanna way og yihiin aakhare markay tagaan oo natiijadii ay arkaan iyo midhihii la goosanayana xaqiiqayba isu dultaagayaan kan lagugu soo dejiyey inuu xaq aha saas macana ayib iyo inuu hanuuninayo khalqiga ku hanuuninayo allaha ciziga leh addoommadiisa ka adag xamiidka ehee la mahadiyo jidkiisa inuu addoommada ku hanuuninayo oo khalqigan xaggeebuu u wadaa qur-aanku xaggeebuu u wadaa allaha casiiska xaggiisa u wada xamiidka ehee la mahadiyo xaggiisuu ugu yeedhayaayo wuxuu leeyahy war alla xaggiisa u kaalay war khalaa'iqdan ka soo go-a war jidkan ilaahay soo qaada jannadiisa iyo ridihiisaaad ku helaysaan halkaasuu ugu baaqayaa ina hada alqur'aana yahdii lilatii hiya aqwam midka ugu toosan dhaqamada jira iyo nolosha jira iyo jidadka jira ka ugu toosan ayuu dadka ku hanuuninaya way macna saas weya marka inay qiyaamadu jirto isa soo saari jirto oo abaalgudkiisa la siinayo ruux walba taasaa waxay macno u yeelaysaa kownkan abuuristiisa xikmad bay u yeelaysaa kownkan abuuristiisa haddayna jiri lahaynna kownkan samaawaadkiisa dhulalkiisa khalqigan la abuuray abuuristoodu macno la-aan bay kusoo bixi lahay maxaa yeelay hadda waa adiga arkayo xaq iyo baatilkii waa isku qasan yahay ahlu xaq iyo ahlu baatilkii nin walba qumanihiisa qoorta ugu jira
يعني وحوي كي حمانته وتي حمانتيسي لغا abaalmarin isagoo laga abaalmarinin buu dhiman kii dadaalahayay ee inta fi khayrka ku dadaalay isagoo abaalgudkiisii helin buu dhiman hadii sida lagu kala tago soo macna laan ma heladu macna laan buu soo baxaya wax ciyaar ku soo baxaya waxaan xikmad ku salaysnayn buu soo baxaya saas daraadeed inay jirto nolol dambe oo ruux walba abaalkiisii iyo wuxuu soo shaqaystay iyo beertuu beertay miraheedii ku goosanayo inay taasi jirto waxay xikmad u yeelaysaa abuurkan iyo adduunyadan abuurkeeda macna taa marka la waayo waxay soo baxaysaa waxaan macna in badan buu quraanku tilmaamay rabbi subhanahu wa ta'ala markuu taqriirayo nimanka la doonay in laga dhaadhiciyo inay nolol dambe jirto war waxaan sidan u habaysanay sidan u abuuranayo waxa sidan isu dhaxyaal soo xilli la kala maro inuu jiro ma adiga mesela markaad walillahi almathalu a'la aad caruurtaada ama dawladda aad mas'uulka tahay ama meel mas'uulka tahay ninka ku raacsanay ku adeecsanay amarkaaga qaadanaya ee baariga ku ah iyo midka kugu kacsanay kula dagaalamaya labadooda soo kala jeex soo midna abaalgud ma siisid midna kaama foga tay hadii ilaahay khalqigi sida ahaaye iska horjeeday ee isleynayay ee ninna aan wixii si uusan helin sida lagu kala tago carrada lagu baaba'o macna la aan baa wixii ku soo baxaysa saas daradeed la budaway inay jirto maalin dambe oo la abaal marinayo macna aqliga ku tusay yani waxa weey sharcigu waa ku tusay aqligu ku tusay طيب ليجزي انه ابال غدا درادد الذين كوا امنوا رمي او عملوا سمي الصالحات اعمال ولاد اولئك كوا لهم وحاصلوا مغفرة دمنا والرزق رزق كريم اولاد والذين كوا سعوا صعبا في اياتنا ايدها لا يدخلوا كوا كسعدا ايدها دخلوا اي كسعدان او سي كسعدان معاجزين حالين كوا عاجز الله ايدها oo ka hortagayaan oo aayadaha ay doonayaan inay soo fulin ulaa'ika kuwaasi lahum hawsuna cadaabun cadaab ba usunaade cadaabkaasoo min rijzin cadaabkan ugu adag ah cadaabkaasoo aliimun xanuujiya wayara waxay ogyihiin alladina kuwa uutuu la siiyey alcilma cilmiga kuwa la siiyey waxay ogyihiin alladii midka unzila la dejiyey ilayka adiga xaggaaga lagu soo dejiyey oo qur-aanka min rabbika xagga rabbiga lagaaga soo dejiyey huwa isagu alxaqa inuu xaqa yahay ayay ogyihiin macna ويهدي وهرونني كانوا بسودتي إلى صراط الحميد خلقه وتقالون إلى صراط العزيز الله عزيز كشتكسا الحميد إلى ما هديه وقال وحيد الذين كفروا كفرين هل ندلكم ما إذن تصنع على رجل منكر يربئكم إذن ورمي إذا قرت مزقتم ليدن كتكتفه ليدن قوقويو كل ممزق كتكتف دمانت كتكتف iyo googooy dhamaanteed markii la idin googooyo innakum idinku la fi khalqin abuur dhexdii inaad ku sugantihiin jadiid oo cusub nin saa idin sheega ma idin tusnaabidi aftara mabeen abuurta aftara miyu been abuurta miyu hafraya ala allahi alladhi kadiban been miyu ku abuurta ama sabihi isaga waxa ku sugan jinnatun wali mizmiyir bamalhab bal iskaba dhaaf سواء معها أي مودين الذين كوا لا يؤمنون أن رمينهم بالآخرة آخر أن رمينهم في العذاب عذاب تحلي بكسبيهم والضلال يبادي البعيد فقيد حقك فقيد بكسبيهم أفلم يروا مين الأركين إلى ما بين أيديهم وحهرتوضا وما خلفهم وحقداشوضا ومن السماء والأرض بلغة إن شاء هدان دونه نخسف ونقوين بهم إيجا الأرض بلكانوا لقويننا أو أما سنسقط ونردي عليهم كركونا وحن كسر ردنا كسفا قبل الله أيام من السماء حق سرك كسر ردنا إن في ذلك أرنك نحديث وحا كسرا لآية أفطان لقوا عبرقات لكل عبد الضوء والبعي وكسرا تهم منيب أو النقضة وحمان تكلمت وإسلام مبدئي أي لحايين لا تأتينا الساعة أيها صوابت كوكا اللي فإليه شيء قياما ما تشرته محاوقي وحيساء إلهين وهذا اللفظ بقى وإيقادا لأيهن وقد عدعلا مركي انطلت لنته عرضا أي دعانكي لفه يهيلكي أي عنطوي لما يستطوع وبني آدم كيبه وعرض نغضه مركا كدب باليسكسه علم وأبور الصب أيال من أبوري ما ودعي تفسيري يا أود إسكالي وحكرت تتجو عرّن نقضي ميا ديب لو سعرينك وكذا أيها قد نقول ديبا يقول الله وحي ليه كوي قالوا بيبا وحي ليه يجي كوكل الله وحي ليه ورمي من تصنع من إذين شيئا مركي ليدين كتفو
kidkidifku yani waa googoyn dhamaystiran wey in yar in lagu googoyey macna markii in yar laydiin googoyood carradu idin cunto markaa kadib in abuur cusub iyo abuuris cusub laydin abuuri doono warkaa nin sheegaya maydin tusna waa la yaaban yahay waa gariib waa wax laysu sheegaba war nin la yaab laho meelaha sheeko ku sheegaya oo waa laysu soo celin oo markii la dhamaado kadib dib laysu abuuri doonaa maydin soo tusnaabay saas maydin soo tusnaa bini aadamku moogta hadduu fogaado oo macnaha wax way xaqa ka fogaado wixii saxda ahaa baa la qaloocanaya markaasaa wixii macquulka ahaa ee caqligu aqbalahaya baa wuxuu la noqonaya waxaan macquul ahayn saas waa markuu xaqa aada uga fogaado war ilaahay keligii caabud waaba la yaaban yahay أجعل الآلهة إلها واحدا بلي إن هذا يعني ورما إلهي دي فرها بالله محمد كريم ووحبا لي بلي ووحبا لقليه ضل قوته ومسألة دي مصلم كايدا مربع عروبة هنا وروا ليس سوء علينا وليس سوء نولي ورسل كل إكرتا وحس شكرا بلدين كل إيه فمغليني أساس مركو الروح الفقاده ولا بي ورما أحوال المغلي مقايفتي إيا موازينتي أو من وحلوه فهمي لا بعد ما قدوه يسمعنا سيد خلق الله عمرك وحلوه فهمي يا معنا مركاتو يحكمين وحيدا أن الله مدوي laba waa mid ninkani inuu masabid leeyahay oo ilaahay uu hafrayo ilaahay baa wax ii soo dhiibo ii sheegay in la soo saari doono ilaahay inuu ku beer abuuranayo waa dhici karta inuu nin miyirla oo waalan oo iska hadlahayo iska hadaaqay yahay oo dhici karta baa waa xukumeen bacha mar hore u dhameeyay rabbi subhanahu wa ta'ala waa ka jawaab wuxuu saamahe mana wala ilaahay kuma beer abuuranayo xaqiiqada meesha taallay waxa way kuwan aakhira rumaysnayni iyaga cadaab dhixdiina ku sugan baadi fogna ku sugan wax lala yaabo iyaga baadi way fogaadeen baadidii iyo lumidii ay lumeen baa la fogaatay waxyaalihii musallamaadka ay iska cadaaba marka agtooda wuxuu ka noqday wax qariib xaqiiqada meesha taallay wata ama nabi maxamed dib ma qabo salawaatu rabbi wasalaamu alayhi wa sallam rabbi subhanahu wa ta'ala marka wuu hanjabo wuxuu yiri miyaynan arkaynin waxa ka horeeya ama ka dambeeya waxa ka dambeeya oo samada iyo dhulka ah wala fiiri hadaad gadaal fiiris iyo hadaad horay fiiris iyo hadaad midig fiiris iyo hadaad bidix fiiris iyo hadaad kor fiiris iyo hadaad hoos fiirisaba sama iyo dhul u baakaajis soo saasma bal adigu meel lama u fakan kartaa hadaan doono rabbi subhanahu wa ta'ala dhulkana la goyn haddaanu doonana kor baanu qaybo ka mida samadaanu kaga soo dejin oo kaga soo ridi gaballo ka mida ayaanu kor kaga soo ridaynaa samadaanu kor kaga soo ridaynaa macnaha gaballo ayaanu xagga sare kaga soo ridayn haddaanu doono miyay baxsan karaan marka nimankan ilaahayna la dagaalamayo rasuulkiisiina la dagaalamayo lana kari laaya si kastana loola hadlay allah hadduu damo inuu cadaabo ciqaabo hadduu damco ma fakan karaan maya meel lama fakan karaan adigu bal intaad si kasta yeesho dhulka iyo samadaas ka dhexbax waa ka dhexbixi karta meel aan samana kaa koraynin dhulna kaa hooseynin tegi karta maya mar haddaada tegi karaynin dhulkana adoo taagan baa lagula goyn karaa samadan kaa koraysana qayb ka mida lagugu dhufan karaa lagugu soo ridi karaa tabar malihid marka awood ad sidaa ugu kibirto oo isla weynaato oo qab iyo ilaahay aad ula dagaalanto malihibe miskiin baa tahay isdhiib oo rabbiga isu dhiibo tabartaadiiyo qadarkaaga intaad garato allah jidkiisii mar iyo siduu kula rabo sidaas la leeyahay macna marka waxa weeye yani durustaas rabbi siinaya subhanahu wa ta'ala wa qala waxa yidhahdeen alladina kuwa kafaru kufri hal nadullukum ma idin tusnaa ala rajulin min korki ninkaasoo yunabbi'ukum idin warramaya idaa goortii muziqtum laydin googoyo laydin kidkidfo kulla mumazzaqin googoyn dhammaanteed googoyn dhammaystiran oo waxba ishaysanin macna innakum idinku la fi khalqin abuuris dhexdeed inaad ku sugantihiin jadiidin oo cusub warkaanin idin sheega ma idin tusnaabaynin aftara miyuu been abuurtay cala allahi alla dushiisa miyuu ku abuurtay kadiban been ama sadihi isaga waxaa ku sugan jinnatun mise waaliba ku sugan mise ninku miyirba malahaba oo dadka walwalanda way iska hadlaan bal iskaba dhaafay saa maaha bu rabbi subxaana wa tacaala aladiina kuwa laa yu'minuuna aan rumaynaynin bilaakhirati aakhira kuwaan rumaysnayn fil cadaabi cadaab dhexdii bay ku sugan yihiin camalka ay ku dhex jiraan baa cadaab gaadhsiinayo waa kii aynu soo marnay ina aladiina ya'kuluuna amwaala alyataama dulman inamaa ya'kuluuna fii butuunihim naaran xoolaha agoonteed cunaysa laftoodii baaba naaraad cunaysa laga dhigay haddana camalka ay ku dhex jiraan ee kufriga iyo gaalnimada laftiisaaba cadaab laga dhigay
maxay waa sababtay cadaabku geli lahayn macna wadalaali baadi dhexdeed bay ku sugan yihiin baadidii al-baciidi ee fogaaya xagga ka fogay afalam yarow miinan arkayni ilaa maa bayna aydiihim waxa hortooda iyo wamaa khalfahum waxa gadaashooda oo min as-samaa'i samada iyo wal-ardi dhulka miyayna fiirinaynin oo arkaynin may u fiirsadaan inayna baxsan karin oo meel u carri karin in nasha haddaanu doono naqsifu waanu goyni bihim iyaga al-arda dhulkaanu la goynayna aw amase nusqit waanu ridaynaa calayhim korkooda kisafan gaballo ayaanu min asamaai xagga sare kaga soo ridayn gaballo samada ama min asamaai samada xagga sareaanu gaballa kaga soo ridaynaa ku baabi'inayna haddaanu doono ina fii dalika arrinkaa dhexdiisa waxaa ku sugan laaayatin astaan lagu cibro qaato likulli cabdin addoon kastay ugu sugan tahay muniibin oo noqonay khaladkii markuu arko ka laabanayo oo ilaahay u noqonayo subxana wa tacala walaqad aatayna daawuuda mina fadlan ya jibaalu awibii macahu waطayra waalanna lahu lxadiid meesha laba qiso ama saddex qisaba aan dhehaya laysdaba dhigaya qiso waa qisadii nabiyullahi daawuud calayhi wacala nabiyina asalaatu wasalaam waxaa lagu xijinayaa qisadii wiilkiisa nabiyullahi sulaymaan calayhi salaam qiso saddexaad baa lagu xijinayaa niman reer saba la odhan jiro reer yamaneed ah qisadoodii baa lagu xijinaya saddexdaa qisaa laysu keen daba dhigay walaqad aataynaa xaqiiqiya waan siinay daawuud waxaanu siinay minaa xagga naga waxaan ka siinay fadlan dheeraad waxaanu ku nidhi yaa jibaalu buuroy buurihiiyo awibii tasbiixda celceliya macahu daawuud la jirankiisa waayra shimbirihiiyo idinkuna awibii celceliya tasbiixda celceliya macahu yani daawuud la jirankiisa waalanaa waan jilcinay lahu isaga waxaan u jilcinay alxadiida birtii baan u jilcinay markaasaa waxaan ku nidhi waqulnaa lahu waxaan ku nidhi an icmal samee saabiqaatin duruucan saabiqaatin direedyo qamiis direedyo balballaadhan oo waasica waqadir qadar fi sardi taxa sargoynta ama tixidda aad taxaysana qiyaas oo qadar wacmaluu camal fala saalixan camal wanaagsan camal fala sheeg aala daawuudow inii anigu bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan basiirun mid ka arkaan ah nabiyullaahi daawuud calayhi salaam fadli buu ilahay fadliga nebinimiya waxaa laysugu daray nebinimo iyo boqortooyo mulki baa laysugu daray fadliga la siiye waxaa ka mid a yani cod quraysh waa ka nabigeena sal lay slam habeenada ka mida wuxuu soo maray abu muusa alashcari oo qur-aan akrinaya habeenkii markaasuu nabigu istaagay qiraa'adiisii buu dhegaystay markaasaa nebigu wuxu uri sal lay slam laqad uutiya hada mizmaaran min mazaamiiri aali daawuuda buu nabi uri sal lay slam waxaa la siiyey abu muusa alashcari cod quraysh oo la mida codkii quruxsanaaye nebi daawuud oo kaleeto u eg ayuu la siiyey buu nabigu sal lay slam marka aad buu u quruxsanaa waxyaalaha ilahay fadliga ku siiyey bay ka mid ah markuu zabuur akrinayo shimbiraha oo dhan baa soo ururay waayra maxshuura shimbiraha oo dhan codkaa quruxdiisa bay soo shirayaan oo isugu imaanaya tasbiixdii uu waday waxaa la qaadaysa yani waxa buurahaa la tasbiixsanay buurihii iyo shimbirihii iyo kulli waa lala tasbiixsanaya tasbiixdii baa lala qaadaya macnaha ilaan codka quruxsan sidiisaba markuu ku qabto codka quruxsan hadduu codka aad u quruxsan yahay yani quluubta waa qabtaa waxaad arki adoo iska raacay oo madaxa u ruxayaad arkaysa rabbi baa amar ku siiyo buuraha ku yidhi buurihii iyo shimbirihiiow la tasbiixsada oo tasbiixda la celceliya daawuud amar ilahay siiyey waa subxana wa tacala taas midde ta labaadi waxa weye waalanaa lahu lxadiida birtaan u jilcinay bu rabbi subxana wa tacala nabiyullaahi daawuud calayhi salaam birtaa ilaahay u jilceeyo yani birta wuxuu u adeegsan jiray si aada u fudud oo uma baahnayn inuu dabgeliyo ama dubbo ku garaaco adiga markaad hadda aad bir doonayso inaad ama mindi ka samayso ama gudun ka samayso ama wuxuun ka samayso soo inaad dabgeliso uma baahnayn dabka ku jilciso kadibna aad dubbo ku garaacdo uma baahnayn nebi daawuud calayhi salaam sidii dhoobo qoyan oo kaleeto intuu soo qaado unbuu isa saarsaari jiray alanna lahu lxadiid ama sidii maydhax oo kaleeto intuu soo qaado xadhigga markaad soo hayso maydhaxda ma waxbaad uga baantayso un caadi usoo himays dunta intaad qaado maad isku soo uma baahnaba in wax ku garaacdo waalanaa lahu lxadiida birtaa ilahay saa ugu jilciyay subxana wa tacala nabillahi daawud wuxuu ka samayn jiray diric bireedyada qamiis bireedyada dagaalka laga xido saabiqaadku waa kuwa balbalaaran oo waasaca qamiis bireedkana waxaa la yidhaahdaa waa gaashaanka jidhka laga qaato ee hubkay ku dagaalami jireen laysaga dhigi jiray jidhka dhan baa loo xidhay nabiyullaahi daawuud marka ka hor intii ka horraysay waxay ahayd yani bir isku baxsan oo meel ay ka laabanto aan lahayn
oo jidhka dhan inta loo geliyo seefta iyo waranka iyo ka celinayo laakiin ruuxu markuu qabo ma fadhiisan karo ma foorarsan karo leanna birtii baa isku baxsan jidhkaa lagu sameeyey mana laalaami karto gacantii halkanay gashay lugihii meel bay galeen isagii oo dhan bir buu ku dhex jira nabiyullaahi daawuud calayhi salaam markii ilaahay birta u jilciyey qamiis direedyadii hubka laga xidhanayay wuxuu u sameeyey qaab ay u laalaabmi karaan wuxuu ka dhigay biro yani mid walba ay giraangir oo kale tahay oo midba midda kale ay sida ay kula jirto gantada kula jirto midba mid bay ku xidhiidhaa midba mid bay kusii xidhanto midba haddana safkanu halkaa ka samaynaya saasuu soo xidhxidhaya safkanu ka hoosaysiinaya birtuna meesha ay ka dulashay iska qabanayso waa meel qiyaasan saasuu marka u sameeyey waxaa soo baxday marka gaashaankii marka la xidho oo diricdireedkii la xidho ruuxu wuu fadhiisan karaa wuu ku dagaalami karaa gacantiisii baa u laabmaysa yani waxa weeyaan wuxuu u sameeyey sidii dharkao kaleeto hadhowta intaad iska bixiso ood laalaabto ayaad ama meel dhigan ama jeeb ka gashan ama maaragtay boorso yar baad ku ridanaysa yaa saa u sameeyey nabiyullaahi daawuud calayhi salaam ciddii ugu horraysay samaysay marka intuu sameeyaa dadku ka gadan jiray waa kii nabiganu yidhi sal lay slam kaana ya'kulu min camali yadi gacantiisa wuxuu ku shaqeeyey yuu nabi daawuud calayhi salaam cuni jiray marka duruucdaasuu samayn jiray calayhi wacalaa nabiyina salaatu wasalam saas macana rabbi baa marka wuxuu leeyahay waqadir an icmal saabiqaat allah subxaana wa tacaala ku hanuuniyo waxaa lagu yidhi yani direedyadaas ama qamiis direedyadaas samee baa lagu yidhi qaabku u samayn lahaa baa loo tilmaamo waxaa li waqadir fi sardiga waxaa la yidhahdaa waa taxa ay diruhu isku taxan yihiin oo midna midda kaleeto ay gantada ama kusii xidhan tahay baa la yidhahda meesha marka labada birood iska gelayaan meeshaa iyadii qiyaas bay u baahantay waxaa la rabaa birta gelaysa mismaar ahaanta ah birtaas inuuna duleelku kana yaraanin kana weynaanin hadduu ka weynaado halow noqdo waa kharimaysa hadduu ka yaraadana markii laab la yidhaahday jabaysa sooma maxaa loo baahaya marka duleelkaa birtu gelayso waa inuu qiyaasan yahay oo shayga gelaya ku qiyaasan yahay waqadir fi sardi taxa aad taxayso qiyaas oo qadar oo jaangoobu ilahay ku yidhi subxana wa tacala saas si daqiiquu marka u samaynaya oo cajiiba macnaha walaqad aatayna xaqiiqa waan siinay daawuud baanu siinay minaa xagganaga waxaan ka siinay fadlan minaa xagganaga xaalo uu ka ahaaday fadlan dheeraad baanu siinay waxaanu ku nidhi yaa jibaalu buuray yaa jibaalu buurihiyo awibii tasbiixda celceliya macahu daawuud la jirankiisa tasbiixda celceliya waayra shimbirihiyow iyaduna waa munaada waayra shimbirihiyow waxay ku cadantay yaa jibaaluda waayra shimbirihiyowna hee idinkuna tasbiixda celceliya way macana saasaa ku jirta wa alannaa waan jilcinay lahu isaga waxaan u jilcinay alxadiida birtii baan u jilcinay birtaan u jilcinayoo uma baahna inuu dabgeliyo ama dubba ku garaace si fudud buu gacantiisa ugu samaynaya markaasaa waxaan ku nidhi waqulnaa lahu waxaanu ku nidhi birtii markaan u jilcinay an icmal samee saabiqaatin qamiis direedyo waasac ah oo balballaaran oo waqadir qadar fi sardi taxa aad taxayso dhexdiisa qadar oo si qiyaasan oo jaan go-an u qiyaas bu rabbi ilahi subxana wa tacaala waqadir qadar fi sardi taxa aad taxaysana qiyaas oo duleelku yuusanna weynaanno halow noqonin yuusan cidhiirina noqonin baa laleeya macnaha wacmaluu camal fala reer daawuudow saalixan camal wanaagsan sameeya inii anigu bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan basiirun midkii arkaan ahay walisulaymaana riixa intaasi marka daawuud wey ilaahay subxana wa tacaala ayaa u nimceeyey wiilkiisii sulaymaan oo aynu soo marnay inuu dhaxlay nebinimadii inuu ka dhaxlay wawarita sulaymaanu daawuuda samaynaa soo maray isagaa hadda wixii ilaahay ugu nimceeyey isagana siiba wax laynoo sheegay walisulaymaana wasakharnaa waan sakirnay lisulaymaana sulaymaan waxaan u sakirnay alriixa dabayshii baan u sakirnay guduwuha kalahaadeedu dabaysha kalahaadeedu shahrun bilwey wa rawaaxuhaa caraabaheeduna shahrun bilwey wa asalnaa waan socodsiinay lahu sulaymaan waxaan u socodsiinay cayna alqitri naxaasta isheedii ishii naxaasta ahayd ee durduraysay yaanu u socodsiinay wa min aljinni jinka xaggiisana waxaan uga sakirnay
man kuwa yacmalu camal falaya bayna yadayhi hortiisa yani gacmihiisa hortiisa ku shaqaynaya biidni rabbihi rabbigii idankiisana ku shaqaynaya waman yaziq ciddii leexata oo minhum jinka ka mida can amrinaa amarkanaga ka leexata oo amar diido la timaada nudiqhu waanu dhadhansiinaynaa min cadaabi saciiri naarta huraysa cadaabkeeda wax ka dhadhansiinaynaa yacmaluuna maxay u qabtaan jinkani nebi sulaymaan yacmaluuna way camal falaan lahu isaga waxay u sameeyaan maa yashaau wuxuu doono oo min maxaariiba mixraabye ah ama qolol sara ah wa tamaasiile iyo taallooyin ah wajifaanin xeedhooyin kaljawaabi oo sida dararkoo kale darar waaweyn oo kale ah iyo waquduurin dheriyo raasiyaatin oo qoqotoma meeshaba aan laga qaadina iska qotoma markaasaa waxaan ku nidhi icmaluu camal fala aala daawuuda reer daawuudow shukran mahad celin daraaddeed ilahay aad u mahad celinaysaan oo camal fala wa qaliilun in yar weeye oo min cibaadii addoommadayda ka mida ashakuuru midka shukrinta badani nebi sulaymaan maxaa loo fududeeyey isagana loo sakhiray dabayshaa loo sakhiray dabaysha rabbi wuxuu yihi subxana wa tala yani dabayshaa u adeegi jirta nebi sulaymaan mulkigii aabihii daawuud la siiyey waxaa ka ballaadnaa mulkigii la siiyey nabiyullaahi sulaymaan calayhi salaam sida qur-aanku tilmaamaya marka isaga waxaa loo sakhiray dabayshaasaa u adeegayso meeshuu doonu u raacayaayo way qaadaysaayo way soo celinaysaayo waxbuu u dirayaa oo way soo qabano dabayshaasaa loo sakhiray dabaysha socodkeedii waxaa laynoo sheego waxaa layidhi gelinka hore waxay socotaa meel bil loo socdo gelinka dambiya caraabaheeduna bil in loo socdo lugtu u socon karaysa ayay goysaa xawaaro dheer sooma maalinkii halkii maalin waxay goynaysaa masaafo lugtu ay u socon karto 2 bilood maalinkii gudihiisa ayay goynaysaa yacni yaman bay ka tegaysaa shaam bay tegaysaa way soo noqonaysaa yaman bay imaanaysaa way kasoo tegi hadday rabto madiina iyo xijaaz bay imaan yani waxa weeye xawli waxay ku socotaa aan caadi ahayn saas yani guduwuha shahrun warawaxuha shahrun waa masaafadii xawaaraha ay ku socota way macna rabbi wuxuu yihi midda labaad waxaanu u socodsiinay buu leeyahay naxaasta ishii naxaasta ah caynkii waxa weeye waa isha durduraysa naxaastan innaga inay markaynu doonayno inay durdurto oy socoto oynu wax ku samaysanayno aynu dabka ku dhalaalinayno isagana ilaahay baa wuxuu uga dhigay il durduraysa il socota ayaaba looga dhigay waa loo socodsiiyey markaasuu wuxuu samaynayaa wax kasta oo u baahan yahay naxaastaasuu ku hagaajinaya ila waa il biyo iska socotay macna wa arsalnaa lahu cayna alqitri saasaa laga wada jinka xaggiisana waxaa looga sakhiray kuwa u shaqeeya oo idanka rabbi ku shaqeeyo hortiisana ka shaqeeya yani isaga amarkiisay ku shaqeeyaanoo hortiisa waxaa laga wadaa bayna yadayhi kama hor dhaqaaqi karaanoo dhinac uma leexan karaan midkii amarkanaga ka leexda oo amar diida la yimaadana cadaab naarta huraysa cadaabkeeda wax ka dhadhansiinayna macnaheedu waxa weeye jinkani wuxuu ku sakhiran yahay ilaahay amarkii xagga iyo xagga midna uma dhaqaaqi karaan xagga iyo xagga nabi sulaymaan amarkiisa waa inay fuliyaan waxaa qabta waa inay qabtaan halkaa fadhiista waa inay fadhiistaan qaar baa xidhxidhan oo meel ugu xidhxidhan isma dhaqaajin karaan oo nebi sulaymaan awoodiisu bashar markuu yahoo la fiiriyo hawshaa ma qaban kara yaa saa u gelaya idan ilaahay bay ku joogaan jinkani midkii amar diida la yimaada meel baas baa laga tuuri ilahay baa subxana wa tacala markaaba cadaab dhadhansiinaya waa baqayaan marka way cabsanayaan saasay ugu shaqaynaya nabi sulaymaan calayhi salaam maxay u qaban jireen baa su-aashata waxay u qaban jireen waxyaalo fara badan maxaariib wax alla wuxuu rabo oo maxaariib ah maxaariibta culimada tafsiirku waa isku khilaafsan yihiin laakiin waxay leeyihiin waa dhismaha quruxsan sidaasi waa mid dhismo kastoo quruxsan mixraab baa la yidhahda waxaa kaloo la yidhaahdaa mixraabka asalkiisa qol sare oo meelaha ay ku cibaadaystaan meesha hadda masaajidda hadda maxaariibtooda ay ka dhisan yihiin meeshaas meel ku yara aadanoo laakiin korkeeda ah ayaa waxaa laga dhisaya qol yaroo sare qolkaa marka waxaa gala suufiga kaniisada hogaamiya ayaa meeshaas gala waa qol sare qolkaasaa mixraabka la yidhahda asalkiisa waa kaan soo marnay qisadii nabiyullahi zakariya iyo soo garamaysaan iyo maryam iyo wakaan kusoo marnay mixraabka marka qol kasta oo saraa la yidhahda maxaariiba marka qolol sarsare oo qurux badan iyo dhismo qurux badan siduu rabaa ayay ugu dhisayaan yani injineeriin dhismaha guryaha yaqaano weeyaanoo guryahay u dhisaan waa kow marka labaad tamaaiila taalooyin atamaaiil waa taalooyin
taalada waxa la yiraahdaa shay kasta oo dhismo oo hoos leh hadii marka la caabudo sanad iyo watan buu noqonay marka taalooyinna uu sameeyay jiray muxuu ku qaban jiray taalooyinka Allahu a'lam fakrane sharciga taalooyinka waa diiday laakiin sharcigooda inay ku banaanayd baa ka muuqata macna waxa kale uu sameeyay jiray wajifaanin xeerooyin aljifaa waa xeerooyinka waaweyn xeerada waa taqaana balmaleen waa saxamada ribaadiya saxanka ribaadiyaha saxamadana way u sameeyay jireen saxanku intuu leeyahay baa waxa la yiri waa sida dar oo kale darka xooluhu cabaan yani xoolaha marka la waraabinayo weelweyn baa loo dhigaa maxay hal mar waxa soo galaya intaasoo neef baa soo galay xeerooyinka marka ay u hagaajinayaan dararkii xoolaha lagu waraabinayo kala mooda tarwin sababtu maxay tahay ciidamada nabi Suleymaan raacsan baa aad u badan marka la doonayo in cunto la siiyo la xeereeyay baadaqis ma xeero sida darka oo kala oo nimba dhankiisa ka soo gala waa in la diyaariyo xeerooyinkana marka wax lagu siin jiray wajifaanin kala jawaabi saasa laga wada wa qudurin raasiyatin iyo dheriyo qoqotoma waxa kale uu sameeyay jireen dheriyo waa digsiyada ama dheriyada wax lagu qarsado way dheriyo qotoma maxaa loo yiri macnaha dheriga weynankiisa wax la qaadi karo ma meesha uu yaalo dhardhaarka uu saaran yahay dardarada uu saaran yahay iyo jikada meesha uu yaalo halkaas uu baa cuntada laga guraa xayl laga soo dejin karo waa in horta cuntada laga guro meeshiisa dabka laga diminaya meesha isagoo saaran baa saxamada loola tagaya markaas laga soo dhuraya halkaas looga qaybinaya ama hadii la isku dayo in la qaado dabka korkiisa iyo dardarada korkooda laga qaado lama awoodi karo quduudun raasiyad inta leegima waa weyn macna maxay la khalaa'iqdaas oo dhan baa raashin loogu karinay wax la qaadi kara maxaa jin maxaa ciidan waxaynu soo marnay ciidamada soo marnay wa xushira li Suleymaana junuuduhu min al-jinn wal-insi والطير فهم يزعون محا شمبراء محا إنسيا محا جنيا وحن ميادو محا دادكا محا دادكا دريون واوين إيا حيري واوين صوما بان كوي معنا ساسويا طيب وحا صوبان بيو سمينيا رب سبحانه وتعالى النبي سليمان مركو ساعه سخري مخلوقات كان وحو كير ريد داوود وحو كير ريد داوود إلان ريد داوود يسوي ريد داوود waxaad camal fala oo ilaahay daacadiisa ku dadaala shukri insan iyo mahadnaqad ka mahadnaqaysa waxa ilaahay idin siiyay subhanahu wa ta'ala saasana oo ficlan nabiyullaahi Suleymaan waa kan soo marnay in uu markii mulkigiisa si u ballaaran yahay iyo yaani waxa weeyaan baashi la hadashay suurada naml markii ku soo marnay quraanjadii la hadashay iyo kibir isla weyn inuu ku bixinine ilaahay waa ka kabariyay inuu waafajiyo shukri وشكريا ساسو معنا شكريا عدومديدا وا ان ير انت شكريغا بدن بربر سبحانه وتعالى انت شكريغا بدن yahay waa in yar warasas sideedaba dadka ahlul iimaanka gaalada waa kayri dadka ahlul iimaanka markii dhexdooda la yimaadana intuu iimaanku daacada ka yahay waa ka yiri kuwa iimaanku daacada ka yahay markii la sii dhaxgalana kuwaasi ayaa si kala fiican oo inta si fiican waa sii وقليل من عبادي الشكور كل شكرين فضلني أدوما ذي وكو يريهم رب سبحانه وتعالى خرنا لسليمان وحن أسخرني الريح ضبيش غدوها كاللهات ديدو وقيلين كورسعت كيف شهر إن بالله سعدوي والرواحها عرابه هذا قلبتي مركزون نقطة عرابه هذونا شهر أما سي سعد كذا والرواحها عرابه هذونا شهر بالإن الله سعدوي بالإن الله سعون كربي عرابها كوبيسا يسعد كقلبت وأصلنا وان سعد سيني له سليمان وحنو سعد سيني عين القطر نحاست إشاري عين بالغ عبري وإل دردور يسوي سيدة بيه وكانت ومن الجن تشنك حقي سنة وحن أغسخرني من عد يعمل عمل فلي بين يديه النبي سليمان هرتيسا بإذن ربه إذن كيسانو كعمل فلي إذن ربي إيا أمر أوسي إيا إرادتي سيكو عمل فلي ومن يزق عدي لاحظ أو منهم تشنك كمذا عن أمرنا أمر كنجا كلاحظ وأمر كأ إني سليمان أشقيان أمر كاسمتي كلاحظ اسكضي إنه أمر ديد لي ماذا نذقه ونبنسيننا من عذاب السعير النار تا خريس عذاب كذا وخذ بنسيننا نار خريس أيال لقول بوده يا مركب معنا مركب بقيا يعملون ويسمينيا له سليمان وحي سمينيا ما يشاء وحدون أو من محرابية قلال سرسرية إيو اسمه قرح بدنا والتماثيل إيا تالوين إيا وجفان حيروين أو كالجواب سيدة ضرر كواوين أو كلاء إيا وقدور دريوه راسيات أو قطماء
dhardhaarada korkooda qotoma oo lagaba qaadayniba meesha uu lagaga dhuray macna kuway Soomaalidu dhigi jireen dheri muraad bay dhahan dheri muraad yani waxa weeye markii uuna yani xaflad iyo wax leedahay la soo qaata marka lagama dejiyo dabka meesha lagaga dhuraa macna saas kuwaas waa ka waaweyn i'malu amal fala ala daawuda war amal fala oo shaqeeyo i'malu amal fala salihan amal wanaagsan sameeya ala daawuda reed daawuda shukran shukaraat mahadnaq aad ka mahadnaqaysaa nicmada ilaahay idin kale darteed subhanahu wa ta'ala saas ilaahay haduu ku nimceeyo waxa la rabaa nicmadaas inay kugu dhaliso sideedaba inaad liido oo aad hoos isu dhigto oo daacadaadu badato oo khayrkaagu bato oo shikrigaagu bato laakiin inagu markii waxoogaa layna siiyo kibir baynu ka qaadnaa taaway mid dileedinaya macna wa qalilun in yarwi min ibadi adomadayda xaqooda ashkuru midka shukrinta badani qalilun in mid yarwi min ibadi adomadayda xal uu kamid yahay ashkuru midka shukrinta badani aad buuriya midka shukrinta badan ee adomadayda kamid kuwa shukriya waa jira laakiin shukrigoodu uusan badnayn inta shukrigoodu badan yahay se way yarihim rabbiga subhanahu wa ta'ala فلما قضينا عليها الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين آيات النواحة لكم وشينيا شينك أيا وحي الرميسنايا إني غيبك أجيهم تدكنا ساسي أشيك جينا بني آدم آيات المركة وحا الله كم وشينيا شينكي الله تصي إني غيبك وحبك أجيهم سير لغو تسوي فلما قرتي قضينا أن حكمني عليه سليمان كركي سمركن كحكمني الموت الجريدي مركن كحكمني ما دل متسن هم شنكي على موت سليمان جريدي في كركي متسن إلا دابة الأرض دولك دابة سيموي وحكى الله تسمى بجرب تاسو تأكل عنيس من سأته سليمان أشيسي عنيس فلما قرتي خر أودعي سليمان أيا تبينت أي عديستي الجن تشنكي وحي عديستين أن لو كانوا هدي أهان لهاي يعلمون كوعك الغيبة وحا قرصوني علمي قمقان هدي أغان لهايين ما لبثوا إنين النقادين في العذاب عذاب كي دحز عذاب كي المهيني أي وحي هانيني عذاب كي كدوا الليسنايين إني سنكون نقادين وعي هاي نبي الله سليمان عليه السلام تيسي مركي سوق الشيء waxay jirtay markuu waardiin hayo shaqada hayaan sida ka muuqata aayada ulbu wadan jiray ushaas markuu cuskan jiray sawa meeshii taagan oo ushiisii cuskan bay geeridii ku timid oo nafti ka baxday sidii buu u taagan yahay dhulka kuma dhicin waa meey laakiin waa taagan ushiisiina waa haystaa jinkii maxay u haystaan inuu wali nool yahay shaqo adag bay ku jiraan mid gurdhisahay mid badgalahayo hawl soo qabanahay mid mesela waxa weeye dhalihi iyo wixii sameynaya mid shaqo adag oo ay ku dulaysan yihiin bay ku jiraan nabi Suleymaanna waa horba dhintayba maxay shaqada ugu jiraan Suleymaan baa nool ay ka baqayaan markay fiiriyaan ba ushii uu haystaayo waa taagan abaar markuu sida ahaa ushii waxa ku dhashay aboorkii baa ushii marka baabi'iyay way boloshay markaasay ushii dhacday markay dhacday buu nabi Suleymaanna dhacay meydkiisii ayaa dhacay markaasay ogaadeen inuu Suleymaan dhintay haddii la yimid ba ushii aboor baa galay aboor good uu ul galay oo intuu cunay dhamaystay oo ay boloshay oo ay dhacday muddo intee la go'aan soo wareeg waqti dheer markaasay waxa la wariyaa ilan bilaash baan u rafaadsanay markaasay jinkii u cadaatay hadday ogaan lahaayeen qaybka wax ka og yihiin shaqadan adag inaysan ku sii jireen soo ma cadaan marka shaqadan adag ay ku rafaadsanaayeen ninkay ka baqayaanna waa horeba dhintay miyay ku jiri lahayn hadday qaybka og yihiin mayna ku jireen intay ogaadaan bay shaqadaba ka carag lahayn ama iska badayn lahayn soo ma rabbi subhanahu wa ta'ala marka wuxuu ku muujinayaa jinkii waa waxa la tusayaa inayna qaybkiiyo cilmiga qarsoon waxba ka ogeyn insigiina waxa la tusayaa war jinkana wuxuu idin sheeganayaa inaysan waxba ka jirin jin baa qayb waxba kama jiro Suleymaan bay wax ka ogaan lahayn meydkiisa iyo dheegaridiisa ogaan lahayn waxba ma ay ogaan wixii sideenaas oo kale weeyaan waxay isa soo dul taagaan buu jinku ogyahay wixii loo sheego buu ogyahay
laakiin meel lama daalacdo carshina ma soo daalacdo qaybka ilaahayna wax kama oga intii ay sideenaas oo kale la ogeysiiyeen bay wax ka ogyihiin saas macna marka aayadu taasay tilmaamayo qaybka ilaahay qarsaday iyo cilmiga qarsoon jinna wax kama oga insina wax kama oga waa hawl ilaahay khaas ah subhanahu wa ta'ala saas macna tayib falamma qorti qadayna an xukunay alayhi daawud sulaymaan korkiisa al-maut geeridii markaan ku xukunay ma dalla matusin hum jinki matusin ala mawti geeridiisa korkeeda illa dabbatul ardi dhulka daabadiisii mooyee wax kale matusin inuu dhintay yaa tusay dabbatul ardi baa tusay oo ahayd macnaha aborka dabbatul ardiga aborka la yiraahdo shurfana waa la yiraahdo surfa yani aborkii baa tusay inuu nabi sulaymaan dhintay iyo geeridiisii waxaan aborka ahayn maba uusan tusinba qisada cajiiba kutubta soo arooriyaan ay leeyihiin waa israa'iili baan u malaynaya hadithu an bani israa'iila wala haraj macnaha wax weeyaan waxay leeyihiin jinku maalinkaas aborkii intuu yidhi wuxuu ku yiri maxaan kuugu abaalgudaa hadaad wax cunayso cunto ugu fiican baan kugu keen lahayn hadaad wax cabtaana cabitaanka ugu fiican baan kugu abaalgudi lahayn markay ogaadeen inayna cuntadana cunin cabitaankana cabin baa waxay ugu abaalgudeen carrada meel alla meeshay gashaba inay carrada u soo ururiyaan ay carrada u keenaan waxay ku leeyihiin meel alla meeshay gashaba haday xataa guriga kor ka gasho korkii oo carra taala arkaysa hayga keen dudumay dhisaysayo carradii waas bal meel ay ka keento aduu kar jinkii baa waaga u ballan qaado oo wali la shaqeynaya yiraahdaa waa qiso israa'iili oo kutubta qortay wallahu a'lam طيب فلما قضينا عليها الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض دولك دابدي سيموي وحكا لما تسيم تاسو تيكو تستوي تأكل مداسو عنيسة أما تأكل حالاء عنيسة من سأته أشيسي أي عنيسة وشي بي عنتي وشي بعد عدي ميتكي سليمان وعد عيساسي كوكرتين فلما قرتي خرأوا دعي سليمان مركو دعي تبينت وي عديستي الجن تشنكي وحي عديستو عدادي أن لو كانوا هديهين يعلمون كوؤك الغيب غيبك كوؤك هديهين ما لبثوا إنينا النقادين في العذاب عذاب كي دحدي سوا شقدي بالقوضة المهين إيهانين يدلين شقدي أتكيدي كدل إثنين مين كسي جيرين هدي أي يعني غيبك وحكوكيهم معنا لقد كان حقيقة وحا هذا وقصدي صدحته لسبا إن غير سبا وحا هذا في مسكنهم قريوه هذا لحظة آية جنتان باو هذا اللي وبيرو تاسو عن يمين مدك iyo shimaal bidix labada beerood midig iyo bidix ku kala yaal markaas waxa lagu yiri kulu cuna min rizqi rabbikum rabbikin rizqigiisa wax ka cuna oo washkuru shukriya lahu allaku shukriya baldatun wa magaaladiinu baldatun wa magaalo balad way tayibatun oo wanaagsan wa rabbun rabbigiina wa rabbun rabbi way ghafuurun oo dhaafis badan labada qad isku hesheen fa'aradu markaasay jeersadeen فأرسلنا مركزان درنا عليهم كركوضة سيل العريم داتكي أتكا سيل العريم كي أتكا داتكي يعني داتكي أتكا بنقدرنا بمعنى وبدلناهم ونبدلي وحنوجو بدلي بجنتيهم لوضع دي بيرو جنتين لوضع بيرو لوضع بيرو دم بي أو ذواتي أكل مرلع عنق صاحبه خمط وصاحبه أكل خمط بمشي على سوق دري لوضع بيرود ذواتي أكل مرلع عنق صاحبه أكل خمط قيد عضيات كمره سي صاحبه إيا وأثل إيا طور مره صاحبه وأكل أثل قيد كطور كالليلة هذا مره سي صاحبه إيا وشيء صاحبه شيء قاسو من سدر جيت كسدر قال هذا قبك كاسو قليل ير محاصل الله قال ذلك كاسي أيان جزيناهم كو أبال مرين بما كفروا كفرين تودا دردي أي كفرين وهل نجازي ميان أبال مرين وأبال كنوع عاصم ميان مرين إلا الكفور متك كفرين تبضن مويه رسبا وحي أهايين يعني نمنكي دقي شري يمن حديث حسن أو ابن كثير وسوء أرورينيو أو ليه هاي وحسن طرق دي سمرك اللي سجيه أيها وحوليه النبي قال له ويدي صلى الله عليه وسلم سبأ أن يمحوها النبي قال صلى الله عليه وسلم سبأ وحوها نين
toban wiil dhalay oo tobankii wiil 6 ka midana Yaman ay degeen 4 ka midana ay Sham degeen qabaa'ishii carbeed ee marka dhulka degi jiray baa ka farcamay asalka saba halkaas ka soo jeeda kadibna muluugtii iyo boqoradii Yaman ka talin jiray taariikh dheer ayaa reerahaas ahaa carabtii caaribada ahayd baa carabtii hore ayay ahayd macna nimanka marka reer saba la yiraahdo waxa ka dhalatay boqoradaynu soo marnay Bilqis suuratu naml aan ku soo marnay soo garan maysan qoladaas ka dhalatay macna qoladaas ka soo jeedaayo boqoradaas boqortooyada u kala dambeeyay mid kamid ay ahayd nimanka reer saba la yiraahdo iyo rabbi qisadooda markay nooga waramayaan manzilkoodii iyo meeshay degi jireen Yaman way rabbi wuxuu leeyahay deegaankay degi jireen dhexdooda aayad baa ku sugan aayad wax lagu cibra calaamo lagu cibra qaato oo maxay tahay laba beerood oo midigta iyo bidixda maray macnaha waxa weeye magaaladu meeshay ku taalo dhankaana beeraaka ah dhanka midigna beeraaka ah dhanka bidixna beeraaka ah magaaladiina waxay u dhaxaysaa labada beerood bay u dhaxaysaa ma aha laba beerood oo hal nin midna hal nin leeyahay midna hal nin leeyahay ee magaalada wixii midig ka maro oo beeraha faraha badanna hal beer bay isku yihiin wixii bidix ka maro beera fara badanna hal beer bay isku yihiin magaaladiina beeraha faraha badan bay u dhaxaysaa barwaaqo soo ma marka oo nooc walba leh ilaahay subhanahu wa ta'ala rasuul buu u diray sida ka muuqata markaas waxa lagu yiri ama dad saalixiina u tagay war rizqiga rabbigiin cuna waxan barwaaqo cuna rabbigiina ku shukriya oo alxamdulillah dhaho ilaahay ku aqoonsada magaalo wanaagsan iyo rabbi dambi dhaaf yaa isku heli kara labada magaalo wanaagsan balad wanaagsan baldatun tayyibatun ma'a laga wada waa balad barwaaqadaasina taal waxa la leeyahay hawadiisuna way fiicnay caafimaadkiisuna waa fiicnaa dhul wanaagsan oo macna carrasan ayuu ku yaalay cayayaanaadka wax dhibana ma balahayn baa la leeyahay marka baldatun tayyibatun waa balad wanaagsan wa rabbun ghafurun ya rabbi dambiyada dhaafo marka reer sabow war ilaahay ku shukriya leeyahay rizqigan ilaahay kaga ku shukri alayhi insi maxay sameeyeen way jeesadeen fa'aradu waa jeesadeen xagee u jeesadeen ilaahay tawxiidkiisa ka jeesadeen shukrigii bay ka jeesadeen waxay u jeedsadeen ilaahay nicmadii uu siiyay inay khalqiga ku caabudaan wa kan soo marnay waxyaalaha caabudu jiraan waxa kamid ahay qorraxdii baa kamid ah Soomaa hududkii warkii hududku keeni jiray suuratu naml markaan soo mareynay wajadtuha wa qawmaha yasjuduna lishamsi min dunillah bala qorrax iyo khalaa'iq kale iyo wax kale inay caabudaan bay bilaabeen oo nicmadii ilaahay siiyay ay ku aqoonsan waayaan fa a'radu markay sidaa sameeyeen nicmada hadii laga shukrin waayo waa la iska qaadiyay waa balaaya ku bilaabatay marka fa arsalna alayhim sayl al-arim arimkaas yani waxa la yiraahdaa yani adayg waa la yiraahdaa adayga yani daadka saylkana daadka la yiraahdaa marka waxay noqonaysaa min baab yani idaafati al-mawsuf ila sifatihi ayaa la yiraahdaa marka waxay noqonaysaa sayl al-arim waxay isku noqonaysaa daadkii adka daad aad u adag ba ku farno lagu siday waxa kale noqon kartaa arimka lagu fasira oo culimadu qaar kood ay ku fasiraan arimka waxa la oran karaa waa yani tog sayl al-arim togi arim la dhihi jiray daadkiisii baan ku siidaynay tafsiir way macna tafsiir kale waa jirta arimka biyaha faraha badan waa la dhahaa adiga waxa way kaasoo aan siga disan daadad baa markuu fakar waxa jiray baa la leeyahay meel sadiya oo biyo xidhan ah oo biyuhu ugu xidhnaan jireen markii kol walba intay uga baahdaan bay sii daysan jireen oo ay beeraha ku warawsan jireen sadigii iyo biyo xidhaankii biyaha xidhahay hal mar fakaday magaaladii iyo deegaankii biyo waxa ku fakaday aynan xamili karin halkaas marka qax ka dhacay yani fa arsalna alayhim sayl al-arim saasa laga wadaayo yani sadigii iyo biyo xidhaankii baa lagu siday ilaahay subhanahu wa ta'ala ku siday meesha sadigaasi ku ooli jiray sadiga waa sadiga caanka ku asadu ma'rib magaalada hadda caanka ee ma'rib la yiraahdo Yaman ka tirsan sadigu halkaas ku ooli jiray baa la leeyahay sadiga markuu fakaday biyuhu ku fakadeen waa lagu kala yaacay shadara madara waa kala dhacay marka ma bay carabtu ka bixisay yani waxa way reer sabaasay u kala yaaceen maalinka qaarna waxay ka dhaceen meesha la yiraahdo Sham qaarna waxay soo galeen Madiina iyo xaggay ku soo carreen qoliyaha soo qaxay waxa kamid ahaa Aws iyo Khazraj labadan reer ee nabiga rumeeyay marka dambe ansaar la baxay halkaas ka soo jeedaan sadigu markuu fakaday qabaa'ishii soo qaxday ee Madiina u soo qaxday bay kamid yihiin Shaamna qaar baa u qaxay qabaa'ishan midna hadda Shaam degi jiray qasaasinada iyo qasaaniinta la dhigi jiray ee dawladii Room raacsana
أما فرس رعسنا عربتها واجس يجون يمن كقح إلا يمنت عربتي أصل كأهيد بيصلبوا واحد قحصا مركز إلهي بك لدادي سبحانه وتعالى بيره هذه مركز واحد لو جب بدلي مدوه كوي لان يقروح ضمنا يقيمها ضمنا كوا أو حبك بعين وحلا قصة صاري ذواتي أكل لبب بيروضة وحلا لو جب بدلي ذواتي أكل مرأ صاحب خمط توحل إلى مرأ خرادة والله وأكل أنت مركز على قصة بينكر أما خمط توحل ده واجد كعادة مجلس خمط عادة مريكي عادة مريكي موحوي كطريق ما وأصل يطور مثلا واجد كان دير وحلقة قرطوي مرأ لعنق من بملك والشيء من سدر قليل ميد وحلا وحش وحل كتير أنجيت كلي الجبك يسقون مبضنا ووحير محوك كتري الجب جب يسقي لفت يسقي بيسقي محوك كتري وحير أنت اللي بابيه وأنت اللي جب بدري واجد أبارات أنت بواجدها بحة حلقة أبارتها ساس منافعات من ملك وحسا إلهي جب بدري سبحانه وتعالى أبى الجد بالله قد جاي كفريا ترى تام حيث معناه هذا وحويان هذا النعمة حسلا ويدان وإلهي النعمة كسيئات كالشكر ويدو إلا جاء قادي أنكو تلك سيدك اللغوص ومر الدنيا قابك لجاء قادون إلهي باكرا سبحانه وتعالى لقد كان حقيقة وحا هذا اللي سبعين رئيس سبع وحا هذا في مسكنهم قريه هذا هي بلد كودا تحديث وحا هذا آية أستان لقو عبرقات جنة ثانية هذا كبدل لما بيروت كواسو عن يمين مدك إيا والشمال بدعة مقالة إيا الديقان كأي مدك إيا بدعة ككلا مران كلوا بالقول عنا من رزق ربكم رزقك سعنا بيرها سبرواقض أصداقا واشكروا شكريا له ألكوا شكريا رب بلدة ومقالة طيبة أو ونكسا وبلد ونكسا وبهودي سيء عافمات كي سيء أغفي عنه والرب ويربقين غفور أو ضافع أصول لابتو إساقنا أصول نوضا مكان خلطنتان فأعرضوا مركاتي كيسدين التوحيد كي كيسدين يا خير كي يا شكر كي كيسدين فأرسلنا مركاتان ندرنا عليهم كركودا سيل العريمي دات كي أتكا أما سيل العريمي يعني تجي عريم نبيه تشري دات كي سيوان قدرنا فأرسلنا واندرنا عليهم كركودا سيل العريمي دات كي أتكابا نقدرنا وبدلناهم وانبدلنا السيل العريمي السيل دات كي العريمي أتكا ساسا مركا نغني سألك لكويو يعني إضافة لكوي وبدلناهم وانبدلنا بجنتيهم لبضوا دي جنة واحد بيرود وحن أبدلنا جنتين لبض بيرود كواسو ذواتي أكل مرأ صاحب خمط ذواتي أكل خمط جيد عضي مليه أصاحبه جيد عضي مليه أصاحبه وأصل يقدور جيد كدور كليلان إيه وشيء شيء قاسو من سدر قبأة قليل أوير انت أنا أصاحبه ذلك أرنكاسي يعني جزيناهم كو أبال القدني بما كفروا كفريا درادة شكري لقواي يجسار نمدي كوكعان سبب تدبال لوغو أبال القدني وهل نجازي ميان كو أبال القدنا أنو أبال مرين تنوع عاسا كو أبال مرين إلا الكفورة متك كفرين تبادن موي وإله النعموين كيسا كو كفريا كأنبا أبال كاسو كلا مريا هذا بالله توفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه